horta qodobka ugu muhiimsan aan doonayo in shir guddoonka ka hadlo inta halkan ergada iskugu timi waxaan horta dooranaynaa waa maseerkii saddexda sane ee soo socota ee la doonayay inaynu soolja ahaan iyo guddi ahaan iyo sidii horumar ballaadhan aynu uga samayn lahayn tusaale ahaan imanka buuggan ay soo qortay soolja maanta haddii la dhaqan geliyo oo inteenaas aynu gacanta u taagno wuxuu ka dhigan yahay in saddexda sane ee soo socota uu noqon doono buug qodob dastuuriya oo aynu ku dhaqmi doono soolja ahaan aynu isku hogaamin doono qaladaad baan intii aan akhriyayey ilaa xalay indhaha marinayay buugga soolja qaladaad baan ku arkay oo ay ka kooban tahay tusaale ahaan waxaynu dooranaynaa 15 xubnood oo markaasi aynu doonayno inay saddexda sane soo socoto soolja ahaan inoo hogaamiyaan qodobka odhanaya kala saarista sida tusaale ahaan xubnahan haddii lasoo xusho oo aynu guddida ahaan u dooranno isla xisaabtankoodii dastuurka buuggan kuma qorna sidaynu ula xisaabtamaynaa 17 ergo ma saddexda sane ee doorashada intay saddexdaas sano saddex wax halleeyaan ayaynu hadhowto markay saddexda sano dhammaadaan baynu dooranaynaa xubno kale oo saddexdaas sano aynu la sugi doonaa mise xubnaha hadda ergadan oo iyagu kuwa xilka ka qaadi kara ah sida buugga ku qoran ayaa kalfadhi degdega yeelan doona sidaasaanay dabeetana xilkii kaga qaadi doonaan xilli maa la mudaynayaa sidee loo mudaynaya ilaa shan inta xubnahan 100 qof ee codaynaya imaka iskuma xidhna qof waliba gobol buu ka yimi sidee hadhowta la iskugu yeedhi karaya sidee loola xisaabtami karaya kuma qorna buugga laakiin wuxuun baa ku qoran in xilkoodii ay waayi doonaan qodobkaasi waa kaa qodobka labaad ee aan doonayo inaan ka hadlaa waxa weeye qaabka maaliyadda isla xisaabtanka maaliyadda haddii makaanigoo imika ergadii ka mida aan doono inaan weydiiyo dad 15 xubnood ee aan doortay warbalaan isla xisaabtanno ama sanadkii ama dhowrkii bilood mar qudhigeeda buuggan kuma qorna jidadkii iyo wadooyinkii aan u soo mari lahaa taasina waa qodob labadaa qodob haddii aan halkaa kaga imaado inta kale saaxiibada baan u dayn doonaa waxaan doonayaa in yaroo talo ah inaan siiyo oo aaraar aan soo jeediyo oo aan u soo jeediyo xubnaha 15 xubnood ee maanta la dooranayo saaxiibayaal haddii aad hore u ogeydeen in ururkii soolja uu hore u ahaan jiray mid aan la isla xisaabtamin mid aan la isla eegin mid aan la ogaanin halkay wax marayaan mid maalin walba miidhiyuhu la iskaga soo hortaagnaado la yidhaahdo waxa weeye ama la iska dhaliilo 15 xubnood ee halkaas soo istaagaya ee han leh nin waliba waa inuu qalbigiisa ku hayaa mas-uuliyad adag oo culus inaad qaadayso mas-uuliyaddaasina ay tahay mid lagula xisaabtami doono mid la jidayn doono oo la ogaan doono wixii aad qabatay in lagula xisaabtami doono maxaa maaliyadee soo galay ururka soolja maxaa kaa baxay qarasha oo weliba sanadkiiya waa qodobka labaad in qaabka loo qiimeynayo lacagaha aan idhaahdo maya deeqaha ama waxbarasho ee dalka ha noqoto ama tababarada caalamiga taasina waa muhiim qodobka kale labaad waxa weeye aan doonaya inaan ku daraa in shirgudoonkana hadhowto ay iyaguna ka howlgalaan si loo kordhiyo aqoonta warbaahinta marbaa digrii laga bilaabay magaalada Hargeysa in yaroo kooban baa ku guuleysatay kadibna digrigaasi wuu xidhmay hadda lacag looma okay taasi waa shaqooyinka yaalla adoo qolada dooro kaasoo dhan aad mahadsan tahay wuxuun baan ku soo koobayaa dadkaynu xulanayno erga ahaana inaynu xulanno dad daacada oo ina hogaaminayo hadhowna ay la xisaabtamayno waa mahadsantiin waad wada fadhidaan maanta